السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يقول مقعي ويا من أحمد يوسف كنا مقعديرها من الجعيل وحنا هاي قابر هالأبورة كنا النول قبل كان تقدر ما حيهتي ما أنت وحنا جعل يستور بهين تينا لو ذاقو إن الجعيل قاضي ما أن جعيل ونقوه حلبان برخد جامع بطون xildhibaanka goraha golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaan ku jeclaaday sida runtii maxay heetoy astaamihii aan ragga ku xulan lahaay oo dhan ayuu ninkaasi leeyahay maxay heeto horta markaa nin dheer qurux badan ma sha Allah oo waxaan ku leeyahay nimanka dheer oo dhan ka helaayo jecelahay maxay heetoy marka labaad waxaan ku jeclaaday in hawlkarnimadiisa marka saddexaad aftahankiisa oo aan hadal ninka laga helin de marka jacaylkaan qoomay soo koobi karaan leeyahay maanta way aaminay adbad maasante xilma dareenka jacayl dhabta u qaaday barqad xildhibaanka golaha wakiilada Soomaaliland barqad jaamac batuun walaalow in barqad jaamac batuun waxaan jacaylka weyn u qaaday maalintuu dooda wada galeen kulmiye afayeenka xisbiga kulmiye maalinta dareenka jacayl dhabta u qaaday okay aaminay ma isku dayday muddada jacayl xildhibaan barqad batuun inaad xiriir kala duwan la sameeysid oo la hadashid wala Facebook maxay heetoy wax jawaab iga muusoo siinin maxay heetoy in wariyaasha ka hawlgala in Hargeysa ayaa tabkiisa isoo sheegay maxay heetoy wax alla wuxuu in sababkana aan jawaab maanta ka hayaa jiro de markaa waa sida aad bad maasantaabna maxaa halkan fariin oo marinaysa haddii xildhibaan barqad batuun ku daawanayo walaal waxaan walaalka kan marinaya maxay heetoy de horta jacaylku waa wax jira waa ka adduunkana ku soo dhaqan yahay kuna dhisan yahay maxay heetoy de waa ogtahay dad badan baa jacayl u dhintay de boodheer iyo malaade taariikhda way ku qoran yihiin de Layla iyo Qaysiyo maxay heetoy markaa waxaan lahaday walaal waxaan ku leeyahay intaan xabaasha la qaadin de walaal bal la soo xidho ila soo hadalo ii soo jawaab walaal waxaan leeyahay in WhatsApp iyo Facebook gaba in badan baan kala hadlay ma fariin uga diray ama cod baa uga duubay markaa waxaan leeyahay walaalo de duubeeg fariimaho hadaad maqlaysid ma yarkaysid de walaal ii soo jawaab ayaan ku leeyahay fariimaha ba iga soo jawaab walaal markaa waxaan ku leeyahay Jamal Caafiyo waxaan ku leeyahay sawiraanta barqad batuun waa inta kaliya tayo helka habeenka ku seexdo subaxaan ku soo tooso saaka subax wax kale ma eego sawiradiisa sanadka la noolahay baa ku noolahay ba ee helka aan ka dhigtaba markaa waxaan leeyahay walaal jacaylka ay ku dhacay horta jacayl hore ima soo marinay bargo jacaylku wax jira maan mood jirin laakiin jacaylkiisa daraadii de walaal uu dhaawac buu geystay aan tirin karaynin waxaan ku leeyahay walaal inanka lama sheekaysan karo walaal nin kale lama hadli karo waxaan leeyahay walaal de beesh wixii warbaahinaya inta u gudbay intii aragtaba intii de isku dhow yihiin baa inanka la ila hadlo sida ugu dhaqsiya badan la war kale gaarsi haduu ii soo jawaabi waayo amna hal abuurad baatay ku nool gobolka Togdheer maanta ay sheegtana waxa jacayl dhab oo qabta xildhibaan barqad jaamac batuun oo xildhibaanka ugu codka badan golaha wakiilada Soomaaliland isku dayna jacaylkaaga dareen ahaan aad suugan ku cabirto aad iyo aad baan walaal taa ugu leeyahayo de markaa waxaan leeyahay xildhibaankii qaranka xilka weyn u hayo kalgacayl xadayba xiisa igu kaaladay meen ledin xalayto safrad baan xabeebtay حقان كاهلا حبيب جمال عافية waxaan rajeynaya walaalo si weyn u rajeynaya maxay tahay muuqaalkaygani inuu gaaro xildhibaan barqad jaamac batuun oo uu soo jawaabo taasoo u wanaagsan maanta oo ii noqon lahayd rajaa